السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركز عشر كي علم بارستا يعني كوبرني research methodology أنا وبطلقنا أرض الجامعة. أنتي لسه عشر كان عشر كي كوري قيبتي اللغات وحين كسوا قاعدني علم بارستا قيبه هذه كل الدون وحين شيء قيبه هو وين علم بارستا عن كل شيء وحلو يقانو بيو research أو يو وحلو يقانو apply research. بيو research عن كل شيء علم بارس أو بيو رامي سافئة يا apply research أحمد الله دبقي. هذا قيبتان كلا واحد إذا بس عطى عشر كي هري وحن وهذا قيبها كل الدون علم بارستا. waxaa muhiim ah qofka cilmi baaraha ama researcher-ka markuu cilmi baaris sameeyo inuu og yahay cilmi baaristiisa halka ay diiradda saarayso iyo muhiimadda iyo hadafka laga leeyahay cilmi baarista in la abaqaado iyo natiijada ka soo bixi karto. haddii cilmi baaraha uu yaqaano waxa uu rabo inuu cilmi baaris ku sameeyo waxa u fududaanayso inuu og yahay halka uu ku socdo cilmi baariskiisa iyo halka ay ku jahan tahay. Saas awgeed cilmi baaraha waxaa habboon intuusan faraha la gelin research-ka ama cilmi baarista qaybaheeda kala duwan inuu yaqaano waxa ay tahay cilmi baarista uu abaqaadayo. haddaba dhowr nooc oo cilmi baaris ayaan halkan kusoo bandhigi doonaa hadduu alla idmo daqiiqadaha soo socdo. waxa ugu horeeya cilmi baarista nooca loo yaqaano exploratory research and study oo ah cilmi baaris sahmineed. waa macna sida ka muuqata exploratory in wax cusub oo la curiyo cilmi baarista noocan ah waxa ay tahay waa cilmi baaris laga bilaabayo meesha hoose ama meesha ugu hooseysa zero like almost zero in laga soo bilaabo. sababtan waxay tahay ma laha cilmi baaris kale oo hore loo ambaqaado oo cilmi baaristan ka horeysay. saas aawadeed qofka cilmi baaraha wuxuu sameynayaa cilmi baaris cusub. cilmi baarista noocan ah waxaa muhiim in la ogaado ma laha wax loo yaqaano hypothesis ama wax la sii saadaalinayo ama wax la sii malacawaalayo maxaa yeelay waa cilmi baaris cusub oo jadid ah. sida kale cilmi baaristan waxay tahay waa mid flexible ah oo waxay ka hadashaa wax loo yaqaano ama waxay diiradda saartaa what iyo where iyo when iyo why iyo how. macnaha sidee wax loo sameynaa, goormee la sameynaa, intee laga sameynaa, waxyaabahaas oo dhan janis ay helaysaa cilmi baaristan maxaa yeelay waa cilmi baaris oo cusub ama wax loo yaqaano exploratory. sida aan sheegno cilmi baaristan ma laha hypothesis. marka cilmi baarista noocaan ah waxay soo koobaysaa ama ay sameynaysaa guud ahaan research-ka oo dhan ama qayb kasta waa ay taaban kartaa. iyada ayaana waxa ay sameysaa new hypothesis ama wax loo yaqaano mala-awaal cusub. sidoo kale cilmi baarista noocaan waxay waddada usii xaartaa in mustaqbalka cilmi baariska laga sameeyo research-kan qaybtan la xiriirto ee hadda la bilaabo ama la ambaqaaday. midda ku xigta marka midda koowaad waxaan ku sheegnay inay tahay exploratory. waxaa kaloo jirto cilmi baaris loo yaqaano descriptive oo ah cilmi baaris qeexineed. cilmi baaristan waxa ay qeexdaa arrin gaar ah weliba arrintaas oo waqtigaas taagan ama markaas cilmi baarista la ambaqaaday arrin taagan. waxayna diiradda saartaa arrintan imise jeer ayay dhacdaa, meeqa jeer ayay soo laalaabataa, laakiin diiradda ma saarto why ay arrintan u dhexaysaa. maxaa yeelay waxaa keliya ay focus ka saartaa dhibkan jiro iyo sida frequency-ga uu dhibkan usoo laalaabto. waxay kaloo diiradda saartaa inay ogaato xiriir ka dhexeeya waxa loo yaqaano doorsoomayaasha ama variableska. xog ururinta research-ka noocaana marka la ambaqaadayo waxaa la isticmaali karaa waxa loo yaqaano tirinta ama tayada waxa loo yaqaano qualitative iyo quantitative. waa marka la xog ururin in la sameeyo, laakiin in la qaado qualitative iyo quantitative waxay ku xiran tahay research questionskaaga. si aad uga jawaabto research questionskaaga waxaa isticmaali kartaa qualitative iyo quantitative. haddaba waa cilmi baarista labaad ee loo yaqaan descriptive oo hadafkeedu yahay in wax la qeexo lana ogaado dhibka ama arrintaaga inta jeer uu soo laalaabto iyadoo aan la raadinaynin sababta dhibkaas u dhaco. waxaa la isticmaali karaa qualitative ama quantitative waxay ku xiran tahay doorashada research questionskaaga. waa tahay midda saddexaad marka waxaa loo yaqaanaa cilmi baaris sharaxeed. waxbay sharaxdaa, waxay sharaxaysaa sababta ay wax u dhacaan. waxay dhexaysaa oo ay raadisaa xiriir ka dhexeeya doorsoomayaasha ama waxa loo yaqaano variableska. sidoo kale waxay sharaxdaa xiriir ka dhexeeya hypothesiska. waxaana loo ambaqaadaa in xog cusub ama xog badan la helo. haddii ay research rabo in area laga sameeyo xogta la haysta ay yarta ama ay kooban tahay waxaa la sameynaa
cilmi baarista loo yaqaano exploratory research oo muhiimaddu ay tahay in wax badan la sharaxo la ogaado xiriirka ka dhexeeya variableska iyo sidoo kale in la testgareeyo hypothesiska. waa cilmi baarista saddexaad oo aan ku sheegnay waxa loo yaqaano cilmi baaris sharaxeed. waa tahay midda ugu dambeyso ah cilmi baarista afraad ee aan kusoo koobeyna casharkeena maanta waxay noqon doontaa cilmi baarista loo yaqaano productive ama waxaa lahaa cilmi baaris saadaalineed oo waxbaa la saadaalinaa. cilmi baarista noocaana waxay diiradda saartaa inay saadaaliso waxyaabaha dhici kara mustaqbalka. si loo ogaado waxyaabaha dhici kara mustaqbalka, cilmi baaristan waxay xiriir leedahay cilmi baarisadii hore loo sameeyey iyada oo ka ambaqaadayso researchadii hore loo ambaqaaday ayaa waxaa la saadaalinaa waxyaabaha dhici kara. saas inta badan waxaa isticmaalo ama economic oo kale dhaqaalaha marka la rabo in 10 sano ee soo socota in la sii saadaaliyo. waxaa la sameynaa researchka hore loo sameeyey waxyaabihii ka soo baxay kadibna waxaa la saadaalinaa waxa dhici kara. cilmi baaristan waxay xiriir la leedahay cilmi baaris sharaxeedka oo ah in maadaama cilmi baaris sharaxeedka ay sharaxdo waxyaabo badan oo ay rabto inay ogaato waxyaabaha dhici kara mustaqbalka, tanina waa mid saadaalin ah waxay xiriir leedahay cilmi baarista loo yaqaano cilmi baaris saadaalineed. haddaba casharkeeni maanta oo ka koobnaa noocyada cilmi baarista ee loo baahan cilmi baarista cilmi baaraha inuu ogaado intuusan bilaabin cilmi baarista oo aan ku sheegnay 4 qaybood oo kale ah exploratory oo ah mid sahmineed, mid labaad aan ku sheegnay cilmi baarista descriptive oo mid qeexinta ah, cilmi baaris sharaxeed iyo cilmi baaris saadaalineed. intaas ayaan kusoo koobaynaa. waa anigoo ah Dr. Shaafici Shariif Maxamed iyo saaxiibkay arrimaheena oo dhinaca kaamila naga saaciday. tan iyo casharkeena intaan dib u kulmi doono. hada billahi tawfiiq. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.